السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحبة الصوماليات ملك السؤال جوبتال إيسا كستو عدو داول السنة مالو ونعكسين ويهي سدح ويك وانا ذي كم مقناع وهودا كومتشرين وحان نجري أفريكا قارهان مقالة نيروبي ما أنت أيان إن شاء الله تعالى هودا دي بقصوا اللابطي هادو الحكا دنبايرة برنامج شديني وحان إذن لو ذاك الدولنا si joogto ah oo aan kala go' lahayn marka waxaan leeyahay intaan idinka maqnayn raalli ahaada waayahay barnaamijka waxaa la yidhahdaa faanka fashilka iyo foolxumada siyaasadeed ee xasan sheekh maxamuud waxaan dul istaagi doonaa qodobo dhowr ah sababtoo ah madaxweyne xasan sheekh haddaan dhahno waxa uu khalday waan ka hadlaynaa hal fadhi iyo laba iyo saddex iyo afar midna kuma soo dhamayn karno laakiin waan darfa goosanaynaa horta ninkii la dhihi jiray axmed maxamed islaam axmed madoobe xasan sheekh maxamuud daahii iyo indhashareerkii u xiraa ayuu ka qaaday ummaddana wuxuu tusay wejiga dhabta ee xasan sheekh maxamuud leeyahay waxaad ogeydeen xasan sheekh maxamuud oo etoobiya intay isku dhaceen mikrofonka soo istaagay baarlamaankii kiciyey labadii aqal ee baarlamaanka ka ansixiyey lalama hadli kara etoobiya ilaa ay ka laabato heshiiskii sharci darrada ahaa ee la gashay somalilan waxaad ogeydeen xasan oo halkaas ku orday oo tegey waddamada masar iyo eritreya oo heshiis la soo galay isagoo leh waxaan la dirirayaa etoobiya waxaad ogeydeen xasan oo mikrofonka intuu qabsaday leh etoobiya annaga ayay dhul naga haysataa waxayna ahayd inaan kaas ku qabsanay inay mid kale naga qaadato xaqubalaha mana yeelayno etoobiya waa cadowgeenna xasanka sidaas lahaa waxaa weeye howl aad u yar ayay etoobiya wixeedii oo dhan uga dhammaysatay axmedoobay isqabteenoo waxaa weeye xoogaa yaro ciidana unbayba soomaaliya soo gelisay iyadoo isu ekaysiinaysa inay u heelinayso axmed madoobe ninkii waaba kaa salbabakhay oo cararay oo orday oo ordogan hoos tegey oo yidhi etoobiya wax allaale iyo waxay rabto ayaan siinayaay hawshan higa joojiso waxaa weeye ugu dambayn etoobiya xasan sheekh maxamuud wuxuu u oggolaaday dhulkii soomaaliyeed iyo baddii iyo wixii lagula dirirayo dhan inay iska qaadato laakiin keliya ay meel ka saarto arrinka jubbaland waxaa weeye waa wax yar nin wax weyn ku beddesho runtii horta si waa u wanaagsanayd oo ummadda soomaaliyeed inay ogaato ninkani waxa uu sheegaya inay been yihiin annagu markuu lahaa waan dagaalamaynaa waxbaan iska celinaynaa intaan ka dhacaynaa ayaan ummadda u sheegayna waxaan leeyahay war wuxuu sheegay waxba kama jiraan laakiin maanta ummadda soomaaliyeed boqolkiiba boqol ayay og tahay xasan inuu been sheegayey wejigiisa dhabtaana way baratay waayahay isla qisadan qiso u dhow dadku inay kala tayo badan yihiin aan rabaa inay idin tuseen waxay horey u soo martay madaxweyne hore maxamed cabdullaahi farmaajo xasan sheekh waxaad ogtihiin inuu ahaa ninkii dacwadda badda geeyey maxkamadda heeg berigaa la siinay kenya laakiin xasan sheekh maxamuud iyadoo ay u qorshaysan tahay in dacwada badda uu ka soo celiyo muxuu ahaytay maxkamadda oo dowladda kenya sidaas kula ballamay ayaa waxaa weeye kursiga laga tuuray kursiga markii laga tuuray alxamdulilah rabbil caalamiin soomaaliya waxay ku badbaaday in nin waddaniya oo wax yar aan wax weyn ku bedelan oo dalka madaxweyne ka noqday maxaa cabdullaahi farmaajo waa kii hoggaan ka qabtay kenya waxa hadda muxuu ahaytay etoobiya yacni xasan ay usoo bandhigtoo kale ayay usoo bandhigtay maxaa cabdullaahi farmaajo waxay dhaheen arrinka jubbaland kaa xallinaynaa ee dacwaddan badda soo celi laakiin maxaa cabdullaahi farmaajo miisaan uu sameeyey uu fiiriyey wuxuu axmed madoobe walaalkii oo soomaaliyaho ama aan heshiin karno ama kale igu xiga ay heshiin karaan arrin weyn oo soomaaliyad uguma tanaasuli karo kenya wuxuu ku yidhi dacwad halkeeda inoo ahaanaysa axmed madoobe arrinkiisana anigaa iska xalinaya waaba kii aqoonsaday oo yidhi waxaad qaadataa muxuu ahaytay aqoonsi ku meel gaar laakiin xasan sheekh isla boosishinka marka etoobiya la soo istaagtay waa kan danihii soomaaliyad oo dhan ka tanaasulay baddiiyo berrikii wixii etoobiya rabtoo dhan yidhi iska qaado ee axmed madoobe ha u heelina intaas dabcan boqolkiiba boqol waxaan hubaa etoobiya inaysan axmed madoobe waxba ka qaadayn oo xasan sheekh maxamuud intay usoo qabatay aysan usoo gacan geli karin laakiin ninkaasaa inuu fashilmo oo wejigiisa muxuu ahaytay khiyaanada ku dhisan ummaddu ogaato baa qornayd waayahay sidaas ninka marka muxuu ahaytay xaalkiisu yahay ayaa faan iyo bararaq iyo waxaan loo baahnay
يوح عن قبل أمد الصومالية وياها كان كلا لما واي حسن مر إسقى نفتيسه نوقا ورمي وحوير وحنا هاي أقول يهد بيجري شهادة اللي راح يست وحنا هاي مدحوينها كي الصومالية لما قرصو هجامي وحنا هاي لحدن جرو لحدن كوما لعبنا اللي انتو بوحي ايد أود شاقة شو يوه وحاوية هروسي دادك الصومالية لغو هروسانيو meel kasta in looga horeeyo waxaan faqli jiray nimanka dictatorada ah sida ummaddu uu maaragtay u daba joogto waxa waaye ma dhinto guulwad oo hebelka loo leeyahay marka dambe waxay aaminaan ummadan haddaad ka tagto way baaba'ayaan xasan waxaad moodaa inuu aaminay dadka inuu isagu ugu sarreeyo ugu aqoon badan yahay ugu waaye aragsan yahay xagga CV-gana isagu ugu sarreeyo laba goor ay noqday waaska dhaqan Soomaaliyeed oo qofka Soomaaliga hadduu 1 milyan helana wuxuu yiraahdaa anigu milyaneer aan ahay xogaa yar doo xariiqdo wuxuu ku leeyahay anigu waxaan ahay aqoon-yahan wax yar ayaa ummadda Soomaaliyeed sideedaba waxa weeye wax weyn la aho waan ku kadsoonnaa hal qisaan dhex geliya hadda ka hor wiil soo maray tahriib Liibiya ayaa ii sheekeeyey marka Suudaan markuu maray ayuu islaan fuul karisa oo muxuu ahay Suudaan ah ayuu fuulka ka cunaa marka uu sheekeeyayo xogaa afka carabiga yaqiin wuxuu yiraahdaa ninkeygaas aad u jeedo tahriibaya jaamici baan ahay jaamacad baan ka soo baxay wadankeyga shaqo ka waayay sidaas u tahriibaya dhowr maalmood markuu sidaas ku yiri ayay shahaado guriga u taala soo qaadatay maalinta waxay tiri horta kaali maalin kasta waxaad tahay jaamici aan ahay heerkay gaarsiisan tahay aqoontaada markaasuu shahaado bachelor aan haystaa masaasa way silad meesha u taalay PhD ka soo baxday waa islaan kontin jira waxay tiri wariyaha taran fuul ku qarinaynaa fuul ma fahamta marka dhibaatada Afrika ka wada jirtay waxna ma taqaan oo aqoon kororso wuxuu ugu yiri aqoolaha leeyahay dambe afkayga lagama maqlo way iga xishoodsiis waxa weeye marka cilmi hadii Ilaahay ku baray cilmigu waxa fiican inuu wanaaga kugu hago cilmigana sidiisaba ninka biyo carab wuxuu man qaala ana caalimun fa huwa tilka lahdati jaahil qofkii waxaan ahay caalim daqiiqadaas ayuu jaahil yahay sababtoo ah waxaad dogtay nabi Ilaahi Muuse alayhi salaam su'aalkiisa marreeb bani Israa'iil weydiiyeen oo dhahan adduunka yaa cilmi badan inuu yiri ana meeshii la rabo inuu yiraahdo al-cilmu 'inda Allah imtixaanka qabsaday oo tii la yiri Muuse wada wad sheegatay bal hadde adoonkeena oo leeyahay qadar ordut markuu u tagay saddex su'aalood saddex talaabo oo qadar uu qaaday ayuu saddexdiiba ka hor yimiday iyadoo waliba lagu yiri innaka lam tastadi' ma'i sabra waxay weydiin baa leeyahay waxaad aragto ana kaaga qisoon doona saddex goor markuu su'aal weydiiyay waxa weeye marka dambe waxa la yiri meesha ku kala tagayna waa halkan saddexda qisana sidaas ay taale waxa weeye marka horta qofka cilmiga leh waxa la rabaa tawaadu inuu la yimaado oo marka hore uu dadka uu iska weynaysiin meesha madaxweynaheena ay waashay muxuu ahay shahaadada uu soo qaatay sidoo kale waxa la rabaa cilmigu inuu muxuu ahay wanaaga ku tusay inuu xumaan ku tuso ma aha in adigoo aqoon intaas leh iyo experience iyo waxa sheegay aad ka xishoon weydo hooyo ooyeyso buulkeedi dumisay ay ku damqi weydo waxa weeye cilmiga inuu wax ku tarin bay ku tusaysa mar labaad madaxweynuhu wuxuu noogu faanay carruurtiisa dabcan waxa weeye iyaduna cilmi darray tilmaamaysa sababtoo ah waayilada Soomaaliyeed xataa dhaqankooda ayuusan xasan lahayn 70 jirada Soomaaliyeed weligaa ka maqli mayso intaasoo carruuraha dhalay waxaanay barteen kan kuma faaran haddaad tiraa imisaad dhashay wuxuu ku leeyahay waa guriga buuxa haye dhaqaal reerku muxuu haystaa waa la nool yahay alxamdulillah rabbil caalamiin sababtoo il iyo ilaa caajirtay MC xasan intuu soo istaagay 10 baa jaamacada ka baxday mid waxaas u bartay ummadii u faariya madaxweyne ma ogtahay oo ma ku xisaabtantay dadka aad u sheekeynay sida Soomaaliyeed ee aad leedahay muxuu ahay 10 cunuga jaamacada iga baxday in uu ku daawan karo aaba Soomaaliyeed oo afar xaas carruur ka dhalay oo 7 iyo 8 iyo 9 iyo 10 ka wada dhalay mid walba ka dhalay oo 20 uu dhalay jaamacad ka saaray mid shaqo tagala uu sin jirin intuu la herdamay nolosha 20 mid jaamacada ka saaray mid shaqo tagana uu sin jirin maadaama dalkii uusan lahayn yani kaabayaal dhaqaale ma ku xisaabtanta in ninkaas uu ka sugayo in aad ila dhaqaale dalkan u abuurto carruurtiisu shaqo taga
ma ku xisaabtantay mid kaas lamid oo 20 dhalay midna uusan muxuu ahayd xataa elementaryga uusan ka bixin inuu joogo oo uu awoodi waayey inuu caruurtiisa waxbarasho geeyo oo kaasuu kaa sugayo waxbarasho free ma ku xisaabtantay in caruurtaada haddii maasha allah aad waxbartay aad u xirtay ilihii dhaqaalaha intii yaree la haystay oo maanta waxaa weeye shaatigaaga aad adugu ku shaqaalaysiisay halkii ummadda soomaaliyeed aad daarac naazil u samaynay waxaa weeye aqoon darro ayaa hadalkaas laftirkiisa ka muuqata waxayna ila tahay wax wanaagsan inaysan ahayn islaamaha madaxweynaha bikulli ixtiraam waxaan odhan lahaa war adaga carruurta ka ceshta kolley dee ummaddii soomaaliyeed qaribiye waxaa weeye ummadda ha la hor ordina carruurteena dhaha ilaahay wuxuu idin siiyey waa idin siiyey wixii ilaahay wax baray waa baray alxamdulilah rabbilcaalamiina dhaha odagana ha loo caqli celiyo ummadda soomaaliyeedna ugu dambayn waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuud ha ka tashato wejigiisa dhabtaho sidaas u yaallaa waxaa weeye wax yar buu wax weyn ku bedelanaya axmed maxamed islaamo isqabteen oo soomaaliya oo diyaarad maanta hadduu raaco kismaayo kadib aan ku dhiiri karin madaxweyne suuma degiis ayuu waxaa weeye in etoobiya qaadato badihii soomaaliya iyo dhulkii iyo wax walbo maanta 25 kun ciidan u tababaranayso ayuu yacni ku bedeshay ama aqbalay waxaa weeye marka ninka sidaas u hanka yar ayaa dalkii hogaamiya ummadda soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay u istaagto difaaca qaranka soomaaliyeed isla markaana aysan isku hadlayn xasan sheekh maxamuud barnaamijkeeda ku dheereeya ma rabo intaasaan raba inaan yara dul istaago hadda waxa ka dambeeya insha Allah taala barnaamijyadeenu si joogta ayuu bixi doonaan hada billahi tawfiiq wasalaamu calaykum.